السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا وناسنا أصحابي ملبا جوجتان كسر لوضع الشانل كان هذا ما أنت عشر كانوا حكوا سيها سيدا فيسبوك أكون كايات كغريب لهات من أن مربل والاستعمال الكلام حتى هذا خف أول قانون بصير كاي أود أميرين دونه إن أكل استعمال فيسبوك أكون كاي وكان أصحابي waxaan soo galnay facebookgeeni markii koowaad waxaa ku dhufataa saddexdan calaamadood kadibna waxaa ku dhufataa qaybtani security and privacy kadibna waxaa ku dhufataa qaybta setting kadibna waxaa ku dhufataa qaybta security and login kadibna waxaa ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay two factor authentication kadibna ujeedaa shaxankan yar wuxuu ku siinayaa laba option koowaad iska daa waxaad ku dhufataa optionka labaad oo ah text message kadibna continue dheh kadibna waxaa leedahay continue marka facebook wuxuu kuu soo diri doonaa 6 god ee kugu soo diri doonaa lambarkani wuxuu xaqiijin lambarkan inuu yahay lambarkaaga marka waxaad tagtaa mobilkaaga ayaa waxaa lagugu soo diri doonaa mist 6 god oo digit number code waaye koodkaas ayaa waxaa gelinaysaa bartaani geliya wuxuu noqonayaa markaa gelis kadib continue leedahay kadib waxaad gelisaa halkaani facebook passwordkaaga markaa gelisid kadibna waxaa leedahay continue marka ujeeda wuxuu ku leeyahay lambarkani oo kugu samaysan facebookkaaga ayaa waxaan kugu soo diri doonaa certification code haddii aad isku daydo ama qof kale uu isku dayo in uu login ku sameeyo facebookkaaga marka waxaa leenahay don kadibna hoos u soco qaybtan ay ku qorta advanced waxaad calaamadan furo kadibna sidaas ayaad ku samaysay two factor authentication marka kani markii qof uu isku dayo inuu facebookkaaga soo dhex galo mobilka ayaa waxaa ku soo dhacayso login ilaa laga helo awood looma lahan marka facebookkaaga in lagu isticmaalo kaliya qofka arki karan login codekaasna waa adiga marka sidaas ayuu kugu samaysan yahay marka awood ma yeelan facebookkaaga